nin xubinta taranka iska jaray isagoo hurda oo wax kale ku riyoonaya. Getty Images 8 Agoosto 2022. Nin beeraley ah oo ku sugan waddanka Ghana ayaa isbitaalka ku jira, isagoo xaaladiisu ay aad u liidato kadib uu si shil ah xubinta taranka isagoo hurdaya. Kofi Atta, oo BBC-da u warramay isagoo sariirta isbitaalka jiifa, ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen. Waxa uu sugayaa in ay dhakhaatiirta ku sameeyaan qalliin. Wariyaha BBC-da ee isbitaalka ku booqday ayuu u sheegay in hadda la siiyay biyo badan, irbado xanuun baabi'iye ahna lagu duray. Balse waxa uu sheegay in uusan haysan lacag uu ku bixiyo xitaa gaarigii isbitaalka lagu geeyay. Anigoo riyoonaya ayaan xubinta taranka iska jaray. Ninkan ayaa sheegay in uu seexday xilli duhurnimo ah, markaas oo uu ku fadhiyay kursi. Wax yar markii uu hurday ayuu ku riyooday isagoo jarjaraya hilib hortiisa yaala si uu u karsado. Balse isagoo aan weli hurdada ka kicin, riyadiina ku dhex jira ayuu si run ah jeebka uga soo baxsaday mindi, waxa uuna si kama ah isaga gooyay xubinta taranka. Kofi Atta ayaa sheegay in markii uu shilkan dhacay uu ka kacay hurdada, balse uu aad u jah wareeray ilaa ay 2 qof oo deriskiisa ah ka caawiyeen. Ma garanayn sida ay wax u dhaceen. Dhiig badan ayaa iga baxay, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in uu arrinta rumaysan waayay, dhankiisana uu haystay inuu weli riyo ku jiro. Xaaladda dhabta ah waxaan ku baraarugay markii ay dadkii i caawinayay i tuseen caddaynta ku saabsan in aan si run ah isaga gooyay xubintayda taranka. Atta waxa uu intaas ku daray inuusan ogayn sida ay ku dhacday inuu mindida la soo baxo. Getty Images. Ninkan 47 jirka ah, oo ka soo jeeda magaalada Asim Akomfode ee gobolka bartamaha Ghana, ayaa aad u qayliyay marka uu xaqiiqda ogaaday. Atta waxa uu ka mid yahay dadka iyagoo hurda sameeya waxyaabo aysan ka warqabin. Dadka cudurkaas qaba qaarkood way socdaan iyagoo hurda, halka qaarna ay waxyaabo kale sameeyaan, sida in ay isku kaadiyaan ama riyo xun arkaan oo ay qayliyaan. Xaalad aad u badan waa in dadka qaar ay sheekeeyaan iyagoo hurda. Mararka qaar haddii qof xaaladaas ku jira aad la joogto, waxay kula noqonaysaa in uu hurdada ka kacay, balse weli kama kicin. Arrinta kale ee cajiibka ah waa in dadkan aysan xasuusan wixii ay sameeyeen marka ay hurdada ka kacaan kadib.